xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi afayeenka xisbigaasi barqa jaamac batuun iyo mujaahid cabdi ibraahim oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ku xidhnaa jeelka weyn ee Mandheera ayaa caawa fiidkii dib u helay xorriyadoodii. boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa kaga hortagay duleedka bari ee caasimadda halkaasi oo iska xaadiriyeen abbaara 4 galabnimo kadib markii ay ka war heleen wararka sheegaya in siideynta mas'uuliyiintaasi xaflad soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay hotelka ee magaalada Hargeysa. mas'uuliyiintana ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani waxaanu yiri waxa dhibaatada dhalinyaradu xuuraan imaka waa sidaas uu bay u meeraysanayaan in la meeraysto lama doonayo haddaan intaa ka gudbo waddanka loogama baahna farxad bay noo tahay inamadeenna xidhnaa ee mas-uuliyiinta heer qaranada gawaantaa la soo daayay ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa ciddii ka howlgashayna waynu ugu mahadnaqaynaa waxay ugu riixayaan nabshaday wadaan inaan horashadii wadnaa maya soomaaliya maaha horashad ma wadnaa waxaynu wadnaa si sidii xukunku ku kala wareega xilligiisa waxaynu ummadda u soo bandhigaynaa barnaamijkeena haddii ilaahay ugu guuleeyo waxaynu samayn doonaa maamul dadka oo dhan deeqa maamul qabyaalada saara maamul musuqmaasuqa saara maamul qarannimada keena maamul cadaaladda keena maamul ictiraafka keena sidaan dadka qaybqaybini mujaahid cabdi ibraahim oo loo garan og yahay dhowdhowle hase yeeshee intii uu xabsiga ku jiray ay u faaftay weedha ila meerayso oo uu hore u jiray ayaa isna ka hadlay xadhigiisa waxaanu yidhi mana dakaamayno waxaanu leenahay u dhaqaajin maynay fulaa dhoosha ka adkaysta fulaha dhoosha ka adkaysta walaalayaal waxaan idin leeyahay rag iyo dumarba xukuumad loo siman yahay oo wadaaga waa in la helaa waa inaynu dalka ka riixnaa ila meerayso ila meeraysadii way dhammaatay waanu ku sheegnay macmiilha ka dhigan taliyaha jeelka taliyaha saldhigga waan u mahadnaqayaa inkastoo ila meeraysada been afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani barqa jaamac batuun oo isla la hadlayay dadkii soo dhaweyntooda ka qayb galay ayaa yidhi kelmad mahadnaqun bay ahayd inaan idiin nimanno idiin mahadnaqno xadhigeega iyo habku u dhacay hawshaanu marnay xaaladayadii waxaba xogeyaha guud baa ka warrami doona markay gaadho marka kelmaddii mahadnaqun bay ahayd ugu dambeyn bashiir cabdi xariir oo mas-uuliyiinta xisbigaana isagana waan u mahadnaqayaa idinma wada magac dhabi kale dhammaan xisbiga oo dhan dee markaa waad mahadsantii ragee howlga xogey gunaanadkiina xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi oo khudbad u jeediyay boqolaal ka mid ah dadkii soo dhaweyntooda ka qayb galay ayaa mar kale eeda culus u jeediyay xukuumadda talada hayse ee Somaliland waxaanu yidhi caawa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan qiimaha badan ee aad noo samayseen anigii walaalkay barkan iyo mujaahid ila meerayso caawa runtii farxad weyn ayaanu dareemaynaa waxaa noo muuqatay inaanu dad leenahay nala dhimanaya nala socda halkanu tagnaba nala tegaya markaa runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaa kaloona aad iyo aad ugu mahadnaqayaa culimada iyo ganacsatada isu xilqaantay sidii aanu meesha uga soo bixi lahayn maanta ee iyaguna waqtigoodii geliyey iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin waxaa kaloona aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland ee xumadiidka ee xadhigdiidka ee cuqdadiidka ee xumaandiidka baanu mahadnaqayaa ee ka xumaaday dad muwaadiniin oo xaqoodii doonaya
in si gardarra loo xidhay dadkaasna dhammaantood waan u mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga ee seexan waayey ee haweenku kow ka yihiin ee la halgamayey ee intaaba hadlaayey iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa